kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka kuwooda ugu door korona qodobada daawadayaal aan idinku hayo waxaa ka mid noqonaya Talyaaniga oo markaasi saraakiil sare oo ka tirsan Liibiya xabsi u taxaabay haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaynu idinku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan hadduu rabeedmo baanama oo markaasi diiday go'aan ka soo baxay Donald Trump haddaba muxuu yahay go'aankaasi waxyaabaha ay ka yiraahdeen barnaamijka ayaynu idinku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ka baxay daawadayaal waxaad ku daawan doontaan maanta Israa'iil oo markaasi weerar ku qaaday dad Falastiiniyiin dhimasho iyo dhaawac ayaa jira barnaamijka ayaynu idinku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaad ku daawan doontaan Donald Trump oo markaasi saxiixay in ka badan 10 shuruuc haddaba shuruucdaasi saameyn ay ku yeelanayaan barnaamijka ayaynu daawadayaal idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa jirta hadal hayn badan oo ka dhalatay sawir uu galay markaasi Elon Musk haddaba sawirkaasi muxuu yahay barnaamijka ayaan daawadayaal kuugu hayaa qodobadaasi qodobo kale oo aad xiiso badan ayaan barnaamijka daawadayaal kuugu soo gudbin doonaa hadduu rabeedmo haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar oo saaxiibadaada la wadaag oo aad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada wararkeena haddii aynu ku bilaawno markaasi muuqaalkii ugu horeeyay ninkan lagu magacaabo Elon Musk oo caanka ah dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kale ayaa markaasi hadal hayn badan dhalisay sawir oo markaasi laga qaaday sawirkaasi ayaa waxa uu tilmaamayaa in markaasi gacanta uu taagayo kaasi oo dadka qaarkood ba ay ku tilmaameen in Hitler markaasi uu ka tusaale qaadanayo halku dhiga oo isticmaala Elon Musk isagoo gacantiisa isticmaalaya xilli hadal ka jeedinaya markaasi dabaaldega caleemasaarka Donald Trump ayaa markaasi carab badan ka dhaliyay gudaha dalka Mareykanka Musk wuxuu u mahadceliyay dadkii markaasi ka soo horjeeday gaar ahaan markaa dadkii hortiisa taagnaa kuwaas oo markaa gacanta u haatiyay isagoo gacanta wadnaha saaray laakiin hadal haynta ugu badan waxay ka dhalatay markaasi in sawir gacanta uu taagay taasi oo markaasi bulshadu ay aad u hadal hayso waxaana sidoo kale jirta markaasi in la leeyahay Elon Musk waxa uu ku dayar rabaa amaba markuu xilkan la wareegaba oo noqonaya ninka kaliya markaasi sida Hitler u dhaqmi doono amaba xukuumadda markaasi hadda Donald Trump uu hogaaminayo in markaasi baaba badan ay u geysan doonto sida dadka qaarkood ba ay timinayaan dadka muslimiinta ama sida awalba ay sameeyeen Hitler oo markaasi baaba u geystay Yahuuda haddaba dhinaca Twitter-ka ayuu wuxuu ku soo qoray qof walba ma waxaad u maleysaan Hitler taasi waa laga soo gudbay ayuu fariin ah oo markaasi ku soo gudbiyay dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markaasi waxa uu saxiixay shuruuc badan oo markaasi saameyn ku yeelanaya markaasi guud ahaan dunida inteeda kale waxaana shuruucdaasi aad markaasi loo hadalhayo kamid ah cafinta dhammaan dadkii ku eedeysanaa falalkii amaba kiiskii 6 Janaayo markaasi rabshadihii watay ka dhacay markaasi baarlamaanka dalkaasi 2021 dhammaan waa la cafiyay markaasi dadkii loo qabtay amaba xabsiyada ugu jiray kiiskaasi sidoo kale sharciga labaad ayaa waxa uu yahay ka bixitaanka xubinnimada hay'adda caalamiga ee caafimaadka adduunka ee WHO taasi uu ku eedeeyay markaasi mid qayaano ah sidoo kalena horay waxa uu ugu eedeeyay xilkiisii hore in markaasi dalkaasi uu qayaano badan u geystay maadaama coronavirus uu si wanaagsan u la tacaalin sidoo kale sharciga saddexaad ayaa waxa uu yahay markaasi xiritaanka xuduudaha koonfureed ee markaasi Mareykanka taasi oo saameyn ku yeelanaysa marka muhaajiriinta doonaysay in ay galaan dalka Mareykanka laakiin waxaaba la leeyahay dadka ku dhaqan dalka Mareykanka ee soo galootiga ahaa inta aan la rarin oo la bixinin iyaga ayaaba si isku ah uga baxaya dalka Mareykanka oo dhinacaasi Mexico ayay bagalayaan haddaba sababta ugu weyn ayaana waxa ay tahay markaasi in musaafiriin dalalkooda dib loogu celiyo iyagoo ka baqaya in ay markaasi u dhawaanayaan xuduudda dalka Mareykanka si mar kale ay ugu soo laabtaan haddii marka xukunka uu ka dhamaado Donald Trump qodobka afraad ayaa waxa uu yahay ka bixitaanka heshiiska xakameynta isbeddelka cimilada adduunka ee Paris kaasi oo markaasi kuleelka inta badan la dagaalamaya laakiin Donald Trump waxa uu heshiiska noqonayaa markii labaad uu ka baxo sidoo kale waxaa jirta heshiiska shanaad oo ah joojinta sharciga shanaad ayaa waxa uu yahay joojinta aqoonsiga Mareykanka oo marka ay heli jireen caruurta dalkaasi ku dhasha
balse hooyadooda ama waalidiintooda ay yihiin kuwo ka yimid ama soo galatiya oo aan sharci haysanin kuwa sharciga haysto ma saameynayo arintani. Waxa sharciga toddobaad uu yahay markaasi mamnuucida dadka aan lahayn jinsiga asalka ah ama lab iyo dhidib sida loo yaqaano labeebka ama dadka qaarkood yiraahdaan qowmuluudnimada, taasi oo militariga dalkaasi laga mamnuucay guud ahaan in ay ka qayb qaataan. Haddii aynu aadno dhinacaasi markaasi Israel maanta waxa ay weerar ku qaaday magaalada lagu magacaabo Jenin oo markaasi dad qaxooti ah ay degan yihiin, iyadoo markaasi isticmaalaysa gawaari iyo sidoo kale ciidamo iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca. ciidamada ammaanka Israel ayaa markaa ay taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa weerar ku qaaday magaalada Jenin ee daanta galbeed markaasi ay maamulaan inta badan Hamas iyo sidoo kale kooxda Islaamiyiinta ee ka dagaalama halkaasi, waxaana lagu dilay 4 qofood sida wararka qaarkood ay tilmaamayaan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israel ayaa ka hadlay, waxaana tilmaamay in howlgalkan uu ahaa howlgal muhiim ah markaas lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada sida uu tilmaamay. Talaabadan ayaa bilaabatay markii Donald Trump uu markaasi ka qaaday cunaqabateynta hubka ee la saaray markaasi Israel iyo sidoo kale weerarada ay ku haysay deegaano qaarkood, waxaana boolisku markaasi ay wadaan howlgallo iyo sidoo kale militariga dalkaasi Israel in markaasi ay soo qabanayaan dadka qaarkood halka howlgalku dadka qaarkoodna lagu dilay. weeraro noocan oo kale ah ayay hore ugu fulisay magaalada Jenin iyadoo dad badan ay ku dhinteen, waxaana jirta markaasi in ay markii koowaad aysan ahayn arintani. dhanka kale Hamas waxa ay tilmaameen in la sii deyn doono usbuuca soo socda ama maalinta Sabtida in 4 dumar ah la sii deyn doono waqtigaasi, iyadoo ay tilmaameen in markaasi nabadda iyagu ay diyaar u yihiin balse Israel ay wali wado markaasi qorshayaal kale oo halis ah. isla arintan waxa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka, waxaanu tilmaamay in heshiiska Israel Hamas uu yahay mid aan waareenin, laakiin haddii uu waaro wuxuu tilmaamay in qasda mustaqbalkeeda ay ifi karto. daawadayaal waxaad daawanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijkeena. haddii markaasi aynu aadno dhinacaas iyo Talyaaniga, sarkaal sare oo ka tirsan markaasi booliska ayaa markaasi loo taxaabay xabsi kadib markii warrant amaba soo qabasho loogu jaray amaba ay u jareen ICC, kaasoo lagu doonayo markaasi in ninkan lagu soo qabto. ninkan oo markaasi ka tirsanaa laanta booliska ee dalkaasi Liibiya ayaa waxaa la tilmaamay inuu qaabishnaa qayb markaasi soo galootiga, isagoo la leeyahay waxa uu ahaa mid ka shaqeeya tarxilinta iyo sidoo kale iibinta dadka, waxa uuna sidoo kale ka ganacsan jiray dadka jirkooda. dadka qaarkood waxa ay tilmaamayeen in markaasi isagoo hotel ku sugan la qabtay. warbaahinta dowladda Talyaaniga kama hadlin, sidoo kale Liibiya kama hadlin, ICC iyaduna kama hadlin, balse ninkan ayaa markaasi tacdiyo u geysan jiray dadka soo galootiga ah. warbaahinta qaarkood ee dalkaasi ayaa ninkan magaciisa ku sheegay Najim Ozama, waxaana la tilmaamay in ninkan uu halis ahaa, sidoo kalena haatan ay markaasi Talyaanigu ay qabteen. waxauna inta badan ka ganacsan jiray dadka in Mediterranean-ka u soo gudbiyo, iyadoo dadka marka qaarkood ay tilmaamayaan in halis weyn uu ku ahaa. haddii aynu aadno dhinacaas iyo Panama, madaxweynaha Panama ayaa markaasi gaashaanka u daruuray qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kula wareegayo kanaalka markaasi Panama, isagoo sheegay in dhigiisa dalkaasi muhiim u yahay ganacsiga, balse Mareykanku arintan uu ku degdegi karin. khudbadiisa caleemasaarka Donald Trump ayuu arintan kaga hadlay, waxa uu sheegay in Panama ay jibisay markaasi balanqaadaha in dhexdhexaad ahaato, isagoo ku eedeeyay markaasi in Shiinaha ay markaasi u maamulo kanaalka Panama. madaxweyne Jose Raul Molino ayaa sheegay inuu diidisan yahay markaasi hadallada dhammaan ka soo yeeray Donald Trump. waxa uu sheegay in marinadaasi ay yihiin mid muhiim u ah Mareykanka, sidoo kalena Mareykanka ayaa tilmaamay in deegaankaasi Panama uu yahay meel markaasi inta badan ganacsigu ugu badan laga qaado canshuur iyo sidoo kale lacago dheeraad ah, wuxuuna tilmaamay in haatan ay la wareegayaan. balse ninkan Panama maamulaya ayaa ka hadlay, waxauna tilmaamay in marnaba aysan suurtagal ahayn in Mareykanka uu markaasi cagta soo dhigo Panama.
waxyaabaha ka soo kordho daawadayaal halkan ayaan idinku ugu soo gudbin doonaa oo aad ku mahadsantihiin la socoshada iyo wararkeena